sida calankeen waa mid qaayoweyno qotadeedu dheerto qof ma wada dhameeyo sanad guuradii lixdanaad ee markii maalmihii xorriyadda ayaa laga dareemayaa guud ahaan meelaha ay Soomaalidu ku nooshahay gaar ahaan gobolka Minnesota oo Soomaalidu u badan tahay 9 sano ugu dambeeyay ayaa waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka xusi jiray dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay isla markaasna la baxay magaca ka joog waxayna sanadkan u bedeleen qaab fogaan arag ah isla markaasna ay ka soo qayb galayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota qaar ka mid ah dadkaas oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay maalmaha xorriyadda isla markaasna in la xasuusiyo dhalinta Soomaaliyeed ee u soo hayaamay qurbaha aan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay ku beegan tahay maalmihii xorriyadda waxaan leeyahay hambalyo xorriyadda sidii naloo soo gaarsiiyay oo qiimaha badneed oo dadkii waxa weeyaan keenay ay uga tageen iyo meesha soo gaarsiiyeen waxaan rajaynaynaa ummadda hadda joogta ee Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah meel kasta ay joogaan inay meeshii ka sii wadaan waxaan kala u hambalyeynayaa oo aan bogaadinayaa dhalinyaradii qaban jiray sanad walba ku qaban jiray North America qaasatan Minneapolis ee ka joog ayagoo waxa weeyaan u qaban jiray si maxaan ku yiraahdaa mutadawacnimo oo dadka oo isugu imaan jireen fagaaraha Minneapolis ay ku qaban jireen arrimo yimid oo caafimaad ay u bedeleen online-ka ay ka ballamiyeen inay dadka online-ka ku soo gaarsiiyaan sidii sharafta lahayd ay u xisu jireen maalmaha xorriyadda ayagana waxaan leeyahay waa in kala soo qayb galaynaa meel kasta oo aan joogno iyo dadka meel kasta ay joogaan waxaan idin leenahay ha ka caajinina ha ka daalinina sidii waxa weeyaan mutadawacnimo lahayd oo aad isugu keeni jireen dadka inaad by online haddana isugu keentaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan halkaan uga hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed maalmaha xorriyadda waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin waxaan kala rabaa inaan halkaan ka xuso xornimadu muhiimadda ay leedahay cid haysato baa garan karto waxaan rabaa inaan halkaan uga duceeyo dadkii Soomaaliyeed ee xornimada maanta u soo halgamay ee naga hooseeyo dhamaantood in Ilaahay naxariista janno ka siiyo waxaan rabaa inaan madaxda Soomaaliyeed dhamaantood anoona kala qaadin inaan halkaan uga baaqo inay nooga tagaan dhaxal la mid ah kuwa ay nooga tageen dadkii u soo halgamay xornimadan Soomaaliyeed ee maanta aynu ku naaloonayno waxaa kaloo xusid mudan inaan halkaan ka sheegana mudan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ururka ka joog ee halkaan Minnesota 9 sano ee la soo dhaafay xafladani u qaban jiray daayarta Soomaaliyeed ee halkaan ku dhalatay ee aanan garanaynin Soomaaliya ama xornimada waxa ay tahay oo sanadkani arrin caafimaad darteed aan suuro gali karin inay ummadda Soomaaliyeed isku timaado ay u dabaaldegto xornimada sidaas la mid ah waxay dhalinyarada ama ururka ka joog qaab online ah ayay xafladii u soo agaasimeen halkaas ayaynu kala qayb gali doonaa midda ugu dambayso aan Soomaali aan leeyahay dhamaanteed meel walba ay joogto dhulka Soomaaliyeed ama shanta Soomaaliyeed waxa weeye inkastoo maanta aynu xornahay oo dal in haysta aynan jirin haddana xor ma nihin waxa aynan ka ahayn qabyaalad waxa aynan xor ka ahayn jeclaysi waxa aynan xor ka ahayn wax walba oo ummad la haro maanta xor kama nihin sidaas si la mid ah waxaan ugu baaqayaa in wax walba oo dib inoo dhigay 30 sano kadib aynu ka xorowno dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeeynaa maalmaha xorriyadda iyo midnimada ee Soomaaliyeed 26 Juun iyo 1 July kuna beegan 60 guuradii xorriyaddaas Soomaaliyeed iyo midnimadaba labadii qaybood ee Ingiriiska iyo Talyaanigu kala gumaysan jiray dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan u rajaynayaa nabad caafimaad barwaaqo iyo midnimo in ay maarta faraxdaas ay maarta ugu dabaaldegaan dhalinyarada Soomaaliyeed hadda gobolka Minnesota abaabulka fiican bay wadaan iyada oo ay xanuunka COVID-19 jira darteed maaragtay in aysan la sugu imaan karin meel sidaa darteed ay qaabad online wax ku qabanayaan hambaliyaan leenahay hadda meelaha xarumaha iyo ganacsigana waxaad moodaa calamadihii iyo calankii Soomaaliya iyo maaragtay loogadii ama astaantii qaranka iyo xataa sawirkii madaxda Soomaaliyeed inay meel kasta suran tahay oo aad moodo in laga jawaabayo fariintii ama codsigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee maalmo ka hor uu maaragtay la wadaago warbaahinta ama ka codsaday shacabka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeeynaa dhammaan Soomaali weyn meel walba ay joogto waxaan leeyahay 26 June ma sha Allah waxa weeye waxaan kaloo aad u salaamayaa madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Khayre waxaan leeyahay hawl fiican baa qabateen waxa weeye dadka Soomaaliyeed meel walbana
ay joogaaneen waxa weeye dee waxaad toosteen wax la arki karo wax muuqda insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad aad u soo baxdaaneen ummadda Soomaaliyeed maalmaha xorriyadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maantana waxay kaga duwan tahay maanta waxaan oran karaa aad bay uga duwan tahay waddankii Soomaaliyeed oo xognimadiisii iyo sharaftiisii aad iyo aad caalamka looga dareemayo marka waxaan leenahay Soomaalida caalamka meel la joogtaba farxad wanaagsan hambalyo wanaagsan iyo guul wanaagsan ummadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa maanta waa maalinta ugu fiican iyo sanadka ugu fiican ay haystaan inay ka faa'iideystaan dawladdan oo aad iyo aad bay waxyaalo fara badan ugu qabatay dadka caalamka meel walba aad aragtid iyo meelaha caalamka ka jiro dhan waxaad ka dareemaysaa Soomaalida jiritaankeedu inuu soo noqday marka in lagu dadaalo in la xoojiyo dawladdan la shaqeeyo mistake uu dhacaa meelo badan uu ka dhacaa bini'aadan baynu nahay misna inaan ka la fiirinay guudnimada iyo waxa weeyaan dhaqanka sare oo Soomaalida xoojinteeda meel walba caalamka ka jirto inta la fiirsho waa muhiim saasaan Soomaalida caalamka joogto dhan ugu kuleenahay wallaahi wa barakaatu dhammaan waxaan horta u hambalyeeynaa Soomaalida oo dhan guud ahaan khaasatan Minneapolis iyo Minnesota waxaan kale oo sii hambalyeeynaa kowda Luulyo iyo 26 June waxaan kale oo u hambalyeeynaa dhalinyarada ka joog la yiraahdo ururkooda maadaama uu hadda COVID-19 uu yimi oo waxa weeye aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeeynaa madaxweynaha Soomaaliya federaalkana aad baan ugu hambalyeeynaa hawlaha uu hadda wado ilaahayna waxaan ka baryayaa Soomaaliya oo dhan inay isu timaado assalaamu calaykum waraxmatullahi maama Hiba Nuur oo kamid ahayd hobolladii Waabari gaar ahaan hobolladii qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan Waabari ayaa waxay ku cabirtay dareenkeeda tiixdan bismillaahir rahmaanir rahiim qoomiyadii hay Soomaaliyeed haddaan dib u qoraansanno qarniyadiina dhaafay isticmaalkiina qabsaday ikhtiyaarkii naga qaaday qaybshay dalkeena taariikhdii laga qoray iyo qaabkii looga adkaaday dhalinyaro qiiraysan oo qaadirkeenu quweeyey dagaalkii qadhaadhay ku qaadeen markay qaabili waayeen qaran bay noo saxeexeen 2 qaybood ka kooban oo qaaradoodii bay ku noqdeen oo qisada calankeenu waa mid qaayo weyn oo qotadeedu dheerto qof ma wada dhameeyo Soomaalo qandoodo qaaradaha adduunka iyo qurumaha aan lagu tirin qadankii laaciyo qoraxdii bidhaantee qaadir noo iftiisheen ku qacsiinay arageen 60kii qotomine Soomaalida quweeyo waxaad qurux la midab tahay cirka qaabadiisa xidigtaan la qoray dhexdaada lagu qiyaasaa dadkaaga lagu qorsheeyo qaarba geeska jooga qolo kufaan iyo qaxooti buu dhamaaday oo qiimahaagi soo noqoy qaadir baanu barinay qaaradaha ka muuqo kii lagu qaboobay waligii qotoma noqo aamiin Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka